tusaale marka wuxuu kasoo baxayaa dalka China markabku wuxuu soo sooyaa Soomaaliya gaar ahaan dekedda Xamar soo qaadanaa dekedda Xamar uu soo sooyaa marka intuusan soo bixin ka hor wuxuu sameynayaa xiriir asoo soo xiriiraya dekedda Xamar wuxuu sheegi doonaa markabkaas waddanka laga leeyahay alaabta uu sido xilliga uu imaan doono badanaa xilliga uu imaan doono marka uu sheego inta gudaha uu kusoo jiro ama travelingkiisa ama safarkiisa uu kusoo jiro waxaa laga yaabaa caqabad yar inuu la kulmo sida dabaylo xoogan inay ku kacaan ama in asaga naftarkiis markab naftarkiis ay ku timaado cilad farsamo inta ay ku jiraan halgankaas in xoogaa waqtiga sheegan ee uu soo dib dhacaan all in all marka intaas laga soo gudbo tusaale markabka waa imaaday wuxuu soo gaaray biyaha Soomaaliya ama dekedda Xamar gaar ahaan dekedda hore marka soo gaarayo wuxuu soo istaagaa xeeb labaad ama xeeb saddexaad oo kale marka intaas uu soo gaaro iska soo gal uma soo gali karo dekedda sidoo kale markabna marka uu baxayo iska bax ma u bixi karo waxay sameynayaan xiriir sida diyaaradaha oo kale diyaaradaha dadkan badankood diyaaradaha marka ay soo degayaan ama ay duulayaan waa la fasaxaa waa la hagaa waa bixi kartaa qadka waa gali kartaa ama qadka waa soo gali kartaa soo degi kartaa wax noocaas oo kale maraakiibtan waa noocaas oo kale aad iyo aad asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan asxaabta ku xiran janaalkeena Som Gold Waves waxaan idin leeyahay isku soo noqod wanaagsan maanta waxaa rabaa inaan sii wado taxanaheeni ahaa shaqooyinka badda annagoo horay oo soo hadalnay qaar ka mid ah shaqooyinka laga qabto gudaha badda weliba annagoo tusaale u soo qaadanay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga haatan waxaa rabaa sidoo kale inaan tusaale ka soo qaadano qaar ka mid ah shaqooyinka ay bixiso wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda intaas kadib muuqaalkan intaan idin soo gudbinin ka hor waxaa kaa codsanaya haddii uusan channelka subscribe ku ahayn inaa channelka subscribe noo dhahdo sidoo kaleetana muuqaalka ilaa garaysa si uu gaaro dhammaan asxaabta kale ee jecel inay wax ka ogaadaan guud ahaan shaqooyinka laga qabto gudaha badda mahadsanid haddii aan ku horumarno shaqada ugu horeyso oo ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay tahay maamulka dekedaha dalka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay maamushaa dhammaan ama guud ahaan dekedaha dalka markaa dhahay keliya maahan dekedda Xamar koos asxaabta qaar waxay u malayn doonaan keliya dekedda inay tahay dekeddan Xamar laakiin intaas ma guud ahaan dekedaha ay leedahay dalka Soomaaliya midda Boosaaso midda Berbera Garcad Kismaayo guud ahaan kulli dekedaha dalka intaas la fahanteen rajayna haddii aad tusaale soo qaadano isla dekeddaas naftarkeeda waxay ka jiraan shaqooyin aad u badan waxaan tusaale soo qaadanaa tusaale marka wuxuu kasoo baxayaa dalka China markabku wuxuu soo sooyaa Soomaaliya gaar ahaan dekedda Xamar soo qaadanaa dekedda Xamar uu soo sooyaa marka intuusan soo bixin ka hor wuxuu sameynayaa xiriir asoo soo xiriiraya dekedda Xamar wuxuu sheegi doonaa markabkaas waddanka laga leeyahay alaabta uu sido xilliga uu imaan doono badanaa xilliga uu imaan doono marka uu sheego inta gudaha uu kusoo jiro ama travelingkiisa ama safarkiisa uu kusoo jiro waxaa laga yaabaa caqabad yar inuu la kulmo sida dabaylo xoogan inay ku kacaan ama in asaga naftarkiis markab naftarkiis ay ku timaado cilad farsamo inta ay ku jiraan halgankaas in xoogaa waqtiga sheegan ee uu soo dib dhacaan all in all marka intaas laga soo gudbo tusaale markabka waa imaaday wuxuu soo gaaray biyaha Soomaaliya ama dekedda Xamar gaar ahaan dekedda hore marka soo gaarayo wuxuu soo istaagaa xeeb labaad ama xeeb saddexaad oo kale marka intaas uu soo gaaro iska soo gal uma soo gali karo dekedda sidoo kale markabna marka uu baxayo iska bax ma u bixi karo waxay sameynayaan xiriir sida diyaaradaha oo kale diyaaradaha dadkan badankood diyaaradaha marka ay soo degayaan ama ay duulayaan waa la fasaxaa waa la hagaa waa bixi kartaa qadka waa gali kartaa ama qadka waa soo gali kartaa soo degi kartaa wax noocaas oo kale maraakiibtan waa noocaas oo kale waa la hagaa marka dekedda uu soo gaaro raadeerka iskala xiriirayaan maraadiga saaran kuwa dekedda maamulo iyo markabkaas ay ku wada xiriirayaan
tusaale waxaa laga yaabaa markab kale inuu meesha ku xiran yahay ama uu soo bixi rabo ama markabkan hadda taagan markab kaleeto inuu ku horeeyo oo soo gali rabo marka wuu suganaya ilaa iyo midkaan kaleeto uu kasoo baxay. tusaale total shaqadaas way soo dhammaatay, jaaniskiisaa la gaaray, iska soo gal uma soo gali karo, waxaa loo dirayaa taagag ama taagis. waxaa jiraan dooman oo loo yaqaano taagis, kuwaas oo aad awood u leh. badanaa waxaa loo adeegsadaa in ay soo jiheeyaan ama ay soo jiidaan maraakiibta. badanaa markabka markii uu soo galaayo dekeda ama ugu soo xirinayo awoodiisa ama isticmaal asaga u iswada ma ku soo galo oo waa la soo jiidaa. marka waxaa sii jiro rag muwaadiniin ah oo la saaraya taagiskaas. markabkii wuxuu ugu tagaya xeeb labaad ama xeeb saddexaad, ayagaa soo wadaya, taagiskana way soo jiidayaan. because badda naftarkeeda waxay leedahay irid ama dekeda marka oo qofka oo dekeda soo galaayo, irid oo ka soo gala markabka iyo irid hadhow oo ka baxayo. maraakiibta badankooda ama kabtanada maraakiibtaas wadan waxaa laga yaabaa inaysan aqoonin iridaas laga soo galaayo meesha ay tahay iyo markay baxayaan hadba meesha ay tahay inaysan aqoonin ama aysan fahansaneyn. marka badanaa waxaa bixiyo ama soo geliyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo weli training u socdo kabtanimada ama haddii kala yaqaanaba. marka jaaniskaas iyadana waa qayb ka mid ah shaqooyinka, waxayna ku qaataan mushaar ku qaataan xareyntaas ay soo xareynayaan. okay, tusaale markabka wuu soo xirtay, dekeda wuu ku soo xirtay, meeshaas waxaa kasii furmi doono shaqooyin kaleeto oo laga qabto gudaha badda, gaar ahaan dekeda. marka waxaa jiro wish oo markabka markuu soo xirto maraakiibta hadda waxay ku xirantaa markabka wax uu soo badanaa waxay wadaan kuwa kaargooga konteenaradaas la soo dejinaa banaanka la soo dhigaa, wishkaas soo dejinaa. waxaa jiro gaari kaleeto oo sida cagafta oo kale samaysan oo laba bir leh, sawirkiisa intaa ka arki kartaan. kaas asagana uu tuutuusinaa, wuxuu u tuutuusinaa mid walbo midabkiisa iyo cabirkiisa. Soomaalideena qaar konteenar markay maqlaan keliya waxay u maleeyaan hal konteenarada ayagaasi kala baxbaxo ilaa waxaa jiro 8 nooc ama 7 nooc oo kale. mid walba wuxuu leeyahay midab gaar ah, wuxuu leeyahay cabir gaar ah. badankooda balaca saamay ka yihiin, laakiin dhirirka ay ku kala duwan yihiin. mid walbana waxaa jira wax u gaar ah oo loogu talagalay, muuqaal gaar ah kasoo samayn doonaa anigoo sharxaya konteenaradaas. sidoo kaleeto konteenar walbana ama midab walbana waxaa iskale shirkad gaar ah. badankooda hal shirkad ma wada laha, shirkad walba waxay soo saaranay mid ayada gaar u ah. hadda tusaale waxaa soo qaadanaynaa konteenarka cadaanka ah, midabkiisa wada cadaanka ah. badanaa waxaa lagu qaadaa hilibka, hadduu ahaada hilib kalluun ama hilib kaleeto oo xoolaha ah, iyo sidoo kaleeto qudaarta. kaas wuxuu leeyahay fridge ama air condition ama mukayf qaboojiyo leeyahay. xitaa gaariga marka lagu wado oo isjiidka ama gaariga trailka marka lagu wado waa loo xiriiriyaa, matoorkaasaa lagu sii xiriiriyaa si usan u halaabin haddaba meesha saaran. sidoo kaleeto wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay hubisaa guud ahaan dekedaha dalka in shaqooyinkooda ay u wataan si amni ah oo waafaqsan shuruucda dalku degsan. kaas waxaa laga yaabaa in dekedahaas in laga soo dejinayo waxyaabo kontrabaan ah ama hub ama draagis. intaas kuma koobna, waxaa laga yaabaa dekedaha in laga soo xareeyo dad oo criminal ah ama dambiilayaal ah in laga soo gelinayo dalka ama laga bixinayo kale. waxaas dhan in laga hubiyo. kaas hore aan soo sharaxnay dekedaha in laga qabanayo shaqooyinka laga qabanayo qayb ay ka yihiin xagga amniga. waxaa ku dhex yaala dekeda stationo, mid nabad sugid ah iyo mid booliiska ah. guud ahaan waxay hubinayaan ammaanka haddii markabkan uu soo xareynayo waxyaaba kontrabaan ama dadka nooca saaran, waxyaabahaas dhan in ay la socdaan shaqooyinkooda, in ay ka qabsadaan waajibaadkooda ay ka gutaan. haataana haddii aan gudubno shaqada labaad oo ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda, waxay noqonaysaa xakameynta gaadiidka badda. in la xakameeyo gaadiidka badda qaybahooda kala duwan, haddii uu ahaa lahaa markab ama doon. iyo sidoo kaleeto waxaa jira dooman waaweyn oo u dhow maraakiibta laakiin aan ahayn markab in la maamulo. kaas badda waxay leedahay waddooyin sida hadda laamiyada iyo waddooyinka iyo isgoosyada si u kala baxaan oo kale. baddana waa noocaas oo kale.
wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda in ay xakameyso maraakiibtaas haddii uu ahaa lahaa markab shidaal, markab saliid. maraakiibta ayaga naftirkooda kala baxaan. another video ayaan kaaga soo sameyn doonaa anigoo sharxayo markab walbo shaqada uu qabto. qaar hub sida, qaar waxyaabo chemical wado, qaar kalluumeysi. doomankana sidoo kaleeto qaar oo passengers saaran yihiin, qaar kalluumeysi, qaar dalxiis. marka noocaas iskugu jiraan in ay xakameyso guud ahaan iyadoo kala soconayso nidaamka raadeerka ah. sidoo kaleeto diiwaangelinta maraakiibta, ship registrations, in ay diiwaangeliso maraakiibta iyo sidoo kaleeto doomaha waaweyn. sidoo kaleeto inta qafood ee saaran, qof walba oo badda ka shaqeeya waa inuu wataa aqoonsi ama caddeyn in markabkaas ama doontaas uu ka shaqeeyo iyo shaqada uu qaabilsan yahay. haddii aanu gudubno shaqada saddexaad oo ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda, dejinta xeerar iyo siyaasad. wasaaraddu waxay dejisaa siyaasadda iyo xeerarka lagu maamulo biyaha Soomaaliya. waxay sameysaa shuruudaha iyo xeerarka biyaha badda, in lagu dhaqmo iyo in kale, in la raaco iyo in kale. wasaaraddu waxay hubisaa in la raaco xeerarka caalamiga ah, IMO, International Marine Organization, iyo wixii la midka ah. shaqooyinka ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda intaas kuma eko. shaqada afraad, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay qabataa badbaadada badda, maritime safety, ilaalinta nolosha dadka ku safra badda, iyo hubinta qalabka badbaadada ee maraakiibta ama doomaha. wasaaradda waxay hubinaysaa maraakiibta ama doomaha in ay saaran yihiin qalabka badbaadada oo loo yaqaano sea safety. badanaa meelaha qaar waxaa ku qoran fast safety, ugu horeyn badbaadada, waxyaabaha badbaadada. sidoo kaleeto markab walbo iyo doon walbo waxaa lagu hubinayaa in ay saaran yihiin sea safety. ugu horeyso life jacket, jaakadaha badbaadada inay saaran yihiin. sidoo kaleeto waxaa lagu hubinayaa maraakiibta iyo doomaha in ay saaran yihiin waxyaabaha fast aidka oo gargaarka degdega qabka loo fidiyo oo kale in ay saaran yihiin. xitaa waxaa jirto xarun cusub oo ay hadda soo kordhiyeen dowladda Soomaaliya oo hoos tagta wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. xaruntaas oo lagu magacaabo xarunta badbaadada iyo samata bixinta dhibaatooyinka ka dhaca badaha Soomaaliyeed. xaruntaas waxay qaabilsan tahay in samata bixin ama gargaar degdeg ama gurmad u bixiso dhammaan dadka ku howlan shaqooyinka laga qabto gudaha badda, haddii ahaan lahayn dad oo passengers ama dad ka shaqeeyo gudaha badda.